libaaxad qoyday oo aan weli qalin bisadaha moodin fanaanada kiin jaamac ayaa ku jirta diyaar garowgeedii ugu dambeeyay ee showga muranka badan dhaliyay Australia kadib markii ay Canada iyo Muqdisho u kala tuurtay nimcaan hilaac iyo dalmar oo dadaal fara badan ku bixinaya sidii uu sanadkan u kala kici lahaa Australia laakiin joogdheertan reer Laascaanood ayaa tiri iga jooji halkan aniga jooge wiilow boqolaal horaha bilabahii sheegtayo intay isboqreen haddana kulumay bilhiya labo gabadhan koysiisa iskaabulada ayaa gabi ahaanba toddobaadkan baajisay oo kabaha kula istaagtay showgii iyo qorshihii uu dalmar ka lahaa dalka Australia iyadoo ciidda ku dartay oo halbacaad lagu lisa ka dhigtay waawaantii wada hadalada ay horkacayeen kaba yareeyeen nimcaan hilaac oo saaxiib dhow la dalmar kuwa oo markii dambe kula taliyay intii madheerahan kaxda kabtanka oo watay inuu Muqdisho iskaga dareeray ciyaar xamarna la ciyaaro maadaama kiin jaamac dhagaha ka fureysatay in sanadkan ay ka wacata Australia oo laba show hal mar wada xamili karin inda deeqo ku haaway naftan ku iman halmad macanum bixi alaki hordada anigu baamlado hey awada anigu baamlado hadmadum bixi kiin jaamac waxa ay dadaal fara badan ugu jirtaa sidii ay sanadkan wacdaro cusub uga dhigi lahayd masraxyada fanka Soomaalida bacdeedana u buuxsan lahayd bil gudaheeda ay kaamiradaha qarsoon qabteen iyadoo Hargeysa laba jeer ku galgalanaysa Somali Culture Nairobi nalka u shidaysa sidoo kalena habeenkii London ee Sultan Seraar kula daarasho toos sameynaysa inkastoo fankii hore lagu xasuusto xushmad haddana sidii loo soo kala horeeyay laguma kala awood badnaa hadda kiin jaamac oo sanadadii dambe daaqada fanka soo qasatay ayaa lagu tiriyaa tiirarka ugu adag ee taageerada fara badan haysta waqti xaadirka waxa lagu xataa in codkeeda iyo luuqdeeda macaan ay ku darsatay xeelad kale oo ay la soo shir tagtay xilliyada xamaalka ee faniska la hortago dhanka kalena qubarada ka faalooda arrimaha fanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay isqabqabsiga ku soo badanaya fanaaniinta Soomaalida marka la gaaro xilliyadan oo kale marka fanaaniinta Soomaalida ku sigtaan inay isku feeraan magaalooyinka iyo fagaarihi ay ku dhigan lahaayeen bandhig faneedada sanadka cusub fanku foolxumo badna fanaaniintu tiro badna